meeshii waa meeshiina. Subscribe saara, like saara, commentingna dhankiina. Asla gudagalna filimkeena. Atooreen magaciisa waxaa la lahaa Salaar Shaah, waana nin taajir ah aadna u kibir badan. Ciyaari inta ku ciyaarooyin waxaa kaloo arkayna wiilka magaciisa waxaa la Rohot Babu aa lahaa. Sidoo kale waana atooreen labaad ee filimka. Atooreen maanta oo lagu magacaabo Salaar Shaah dhalashadiisa aabiisna wuxuu u soo dhiibay hadiyadaal badan, wuxuuna asxaabtiisa ku dhahay anaa qabo xafladiina. Waxaan kaloo arkayna atiriishadeed waa maalinkii ugu horeeyay ee kollejkeeda. Hooyadeedna waxay ugu dardaarmaysaa inay is ilaaliso, aanan wiil iskuulka ku jeclaanin ee waxbarashadeeda diiradda saarato. Arkayna atooreen hooyadiis u imaatay, hooyadiis isaga khilaaf ka dhaxeeyo iyo aabihiis. Atooreen kollejku degan yahay. Maalin isagoo yar ayay hooyadiisa ugu tagtay isagoo baryaya maan soo laabanin, laakiin waxay u imaatay waqti kasta waxay u imaatay dhalashadiisa. Wuxuu soo xasuusanaya caqabadihii ku dhacay yaraantiisa. Filan waxaa loo soo sheegay in asxaabtiisa dagaal galeen. Dhanka kale waxaa arkayna atiriishada oo timid college, wiilkan aabihiis ayaa lacagta college ka bixiyo. Atooreed isagoo soo cararaya si lama filaan atiriishada oo dhex rabta ayuu qabanaya, wuxuuna u ordaya si uu u caawiyo saaxiibadiisa oo dagaal galeen. Rohit wuu ka xanaaqay qabashada atoora uu qabtay atiriishada, waxaana halkaas ka ogaanay inuu atiriishada jecel yahay. Ugu dambeyn atiriishada guriga ay timid waxayna ugu sheekeynaysaa wixii ka dhacay college-ka walaasheeda. Atiriishadan hooyadeed waxay ugu talinaysaa inay gabadheeda dadaasho si ay ugu faanaan. Qaybta xiga waxaa arkaynaa Rohot Babu iyo atooreen Salaar Shaah inay ku tartamayaan tartan mooto wadista. Intii loo guda jiray tartankii waxaa si lama filaan ah wadada u soo galaya atiriishadeena, wuxuuna ka jebinayaa moobilka. Aad ayayna u canaanaysaa, waxayna dhahaysaa waxaa tahay qof kibir badan. Wuxuuna ugu imaanayaa college-ka, wuxuuna siinayaa moobil cusub, iyadana way ka diidaysaa. Waxayna dhahaysaa moobilkaaga ani kaama baahni. Iyagana waxay la kulmayaan gabar kale oo waxayna dhahayaan atiriishada moobilka u geli boorsada si iyadoonan ogeynin, wayna marsoominayaan. Ugu dambeyn iyadana way la soo fadhiisanaysaa, waxayna u gelinaysaa moobilkii. iyo tiriishada iyadoo banaanka iska fadhiis waxaa u imaanayaan gabdho waxayna dhahayaan Salaar Shaahi ma ku qaylisay adoo weliba gabar faqiir ah. Ugu dambeyn waxyaabo oo ay dhibstay dhahayaan, laakiin waxaa kasoo gaaraysa tiriishada saaxiibteeda cusub. waxaan meesha ayna ka soo weysay habeenkii xigay iyadoo cashar akhrisanayso moobilkii ayaa la soo wacaya. waxaan ogaanayaan faamiligeena, laakiin iyadu waxay dhahaysaa waxaa iskale saaxiibteeda wayna ka qabanaysaa, laakiin wuxuu ahaa Salaar Shaah. wuxuuna dhahayaa seeta caafimaadkeeda iyo waxyaabahaas weydiinay. waxay dhahaysaa waxaa moobilka u soo gelisay boorsadeeda. waxay dhahaysaa beriyaa ku keena, laakiin waalidiinta mistareensinaysa waxayna ka dhigaysaa inay la hadlayso saaxiibteeda. subaxii xigay waxaa arkaynaa atoolaheena Salaar Shaah oo imaaday kollejka. tiriishadan waxay arkaysaa atooraha waxayna u soo bixaysaa, waxayna siinaysaa moobilkiisa iyadoo isku qaylinaya. waxaa imaanaya Rohit Babu, wuxuuna dhahayaa maku dhibooyaa makaa celinaya. iyadana way iskaga tagaysaa maadaama wiilkan ay necebtahay. wuxuuna dhahayaa isku badnaa gabadhan ha ka ag dhawaanin. Rohitna wuxuu bilaabaya inuu u tago tiriishadan Sunira, wuxuuna ku dhahayaa ninkan kama ag dhawaan kartid. maantana wuxuu ku dhahayaa iisoo ogow wiilkan waxay isku yihiin iyagana mashquuli muddo 4 beri ah. sida caadada ahayd tiriishada waxaa boorsada dan loo soo gelinaya warqad, waxaan u soo gelinaysaa tiriishada saaxiibteeda cusub. waxaana soo dirsaday atooraha, wuxuuna iska dhigayaa inuusan waxba ogeyn. haddana wuu ka tagayaa markuu ka mashquuliyo. habeenkii xigay walaasheed ayaa waxay arkaysaa warqadii atooraha oo u soo qoray tiriishada, wuuna ka raaligelinaya wuxuu ku sameeyey. tiriishadan waxay sixinaysaa iyadoo ka fikirinaysa arrinkaas. subaxii dambe waxaa la imaanaya iskuulka. Rohitna waxaa la bilaabaya in la mashquuliyo, waxaana loo diraya magaalada badanee mashruuc. waxaan u diraya macalinka atooraha isla ogyihiin. maalinkii xigay waxaa la sheegaya project kuwaasoo laba ardayda la iskugu xiri doono. qofkii guuleysan uu noqon doono qof iskuulka ku dhigto mise college ku dhigto bilaash. tiriishada waxay bilaabaysaa inay faraxdo, waxaana la isku aadinaya ardayda, waxaana la isku aadinaya iyadii atooraha. wayna ka xanaaqaysaa midaas macalinka ay u tagaysaa, waxayna dhahaysaa iga bedel wiilkan marabi. kabacdi atooraha macalinka wuxuu dhahayaa iska daab tookadan wayba dhacday. atoorahana u mahadcelinaya macalinka maadaama isla ogaayeen. dood dheer iyo khilaaf dheer kabacdi waxay ku heshiinayaan inay projectigan bes ay isla xaliyaan. waxayna go-aan ku gaarayaan inay guuleystaan. maalinkii xigay waxaa bilaabanaya projectiga. tiriishadan waxay dhahaysaa waxaa ka diyaarinaynaa warbixin dadka faqiirada ah iyo say ku nool yihiin. iyagoo bas raaci weligiis atooraha bas ma raaci maadaama uu taajir. baskii ayaa ka tagayo. ugu dambeyn tiriishada soo laabanaysa waxayna raacayaan bajaaj, waxayna aadayaan meel ay ku nool yihiin dad fuqaro ah. markay imaadaan waxay ka qaadayaan sawiro iyagoo ka hadlayaan noloshooda sida ay tahay. atoorahan wuxuu wacayaa saaxiibkiisa, wuxuuna ku dhahayaa
soo qaad dad la siiyo wax usoo gad dadka masaakiinta. Ugu dambeyn atooraha saaxiibkiis wuxuu keenayaa waxyaabihii loo baahnaa ee la siin lahaa dadka fuqarada ah, waxaana bilaabmaysa inay sawir iska qaadaan. Atooraha aad ayuu ugu xumaanaya noloshan dadka ay ku nool yihiin, isaga wuxuu ku nool yahay nolol qannimo ah. Atariishadan aad ay ugu helaysaa waxyaabaha uu sameeyey, waxayna ka qaadaysaa sawiro weliba iyagoo faraxsan. Ugu dambeyn waxaa la gaarayaa habeenkii, waxayna atariishada ka fikiraysaa waxyaabihii maanta dhacay, waxaana u imaanaysa walaasheed, waxayna ku dhahaysaa maxaa ka fikiraysaa, salaar ma ka fikiraysaa. Ugu dambeyn atooraha soo wacay wuxuuna u sheegayaa wayna isla sheekeysanayaan. wada hadal dheer iyo isfahan dheer kabacdi iyo isla sheekeysi badan waxay qaybteena ku jarmaysa sidaas filim ee qayb xalqadeena kale. Maalinkii xigtay waxay isla wadaan projectigii, waxayna ka diyaarinayaan buug. dhanka kale waxaa arkaynaa wiil atooraha saaxiibkiis ka mid ah inuu yahay dhalashadiisa, waxaana loo dabaaldegayaa meesha si farxad leh. socota diyaarintii buugga oo loo qoray dadka masaakiinta ah ay sidii u nool yihiin. waxaa arkaynaa atooraha inuu ka heleelayo atariishada. habeenkii atooraha wuxuu maqlayaa qaylo, markuu banaanka usoo baxo aabihiisna banaanka usoo baxo, waxaa la arkayaa atooraha hooyadiis iyadoo banaanka taagan oo dhehayso wiilkay anuu ila joogaya maalmaha uu yacni guriga joogayo oo koleejka fasax ka yahay. atoorahan uu ka xanaaqayo, labadood wuu iskaga tagayaa. maalinkii xig koleejka la gaaray waa maalinkii ugu dambeysay ee projectiga dad walba qofkii guuleystay la kala ogaan lahaa, laakiinse atariishadu waxay sugaysaa atooraha mana imaanaya ilaa amar dambe. waxaana bilaabanaysa koleejka dhexdiisa dagaal ardayda ka mid ah. atooraha ayaa imaanaya, saaxiibkiisa is arkaan, waxay dhahayaan soo bax meesha aan ka xaranay maadaama uu khilaaf dagaal uu ka socdo. laakiin atariishadu waxay ku jirtay meesha oo buugaagta lagu akhriso librariga, waxayna ogaanaysaa in dagaal uu ka bilaawdo koleejka. atooraha ayaana soo badbaadinayo. banaanka koleejka ayuuna usoo saaraya, wuxuuna usoo wadayaa gurigeeda. habeenkii waxaa imaanaya Rohit, wuxuuna u sheegayaa waalidiinta inuu maanta koleejka ka dhacay dagaal. atariishadan ilaa hadda ma imaanin, aad ay ugu walwalayaan. ugu dambeyn atooraha guriga ayuu keenaya atariishada, wuxuuna dhahayaa orod xarow. hooyadeed ayay is arkayaan, hooyadeedna waxay ku dhahaysaa maxaasaan ugu soo daada ma fiicantahay. ugu dambeyn atariishada maalinkii xigay waxaa loo dhiibayaa warqad wadada meel kasta isa, waxaana la dhahaa haddaa rabtid inaad la kulantid Rohit ma ahan waa salaar shaah, haddaa la kulantid aad rabtid soo raac falaarahan. way imaanaysaa, wuxuuna u sheeganayaa jecel inay isguursadaan. atariishada aad ay ugu farxaysaa, laakiin uu jawaabayso waxay dhahaysaa maalmo isug warqad ayuu u qoray. laakiin wejigii atooraha waxaa ka arkaynaa inuu soo wado wax aad u xun, dhagarna uu la maagan yahay atariishada. waxaa arkaynaa Rohit aabihiis oo imaaday guriga atariishada, wuxuuna u imaaday in atariishada uu soo doonto Rohit lagu daro. aabahana ma ka diidi karo maxaa yeelay saaxiibo waaye, waana wuxuu ka bixiyaa gabadhiis koleejka, caawinaad badan ayuu u fidiyaa. dhanka kale koleejka waxaa ka arkaynaa atariishada waxay usoo qartay atooraha inay jeceshahay iyadana, laakiinse isaga dadka dhexdeed ayuu ku ceebaystay. wuxuu dhahay gabartii ay caynaysaa hadda maanta waxay la waalinaysaa jecelka. atariishada ceeb iyo fadeexa ayay la kulmaysaa, wayna kasoo cararaysaa koleejka. guriga ayay imaanaysaa, wixii ku dhacay awgeed aad ayay u xanuunsanaysaa. Rohitna guriga ayuu imaanaya, laakiin aan waalidiinta atariishada waxay weydiinayaan wixii maanta koleejka ku dhacay. isna wuxuu dhahayaa gabadhiina weydiiya wixii dhacay. maalinkii xigay atooraha wuxuu dhahay saaxiibta atariishada kalmaa, wuxuu dhahay aawe Samiira, iyadana waxay dhahaysaa saa ma kaa filayn, nin xun ayaa tahay. dhanka kale atariishada waxay usoo dhiibaysaa warqadihii atooraha usoo dhiibaya. atariishada waxay usoo dhiibaysaa saaxiibteed, waxayna u dhahaysaa warqadihiis u celi. aad ayayna u oonaysaa, laakiin iyada Rohit wuxuu ku qaylinayaa atariishada maadaama uu asaga jecel yahay uuna rabo inuu guursado. wuxuuna dhahay anaa ku ceeb asturaa, anaa ku aroosa. iyadana aad ay ninkan u necebtaa maadaama uu wax walba ku sheegto oo waalidkiis waxay u sameeyeen uu ku sheegto. maalinkii dambe waxaa la diyaarinaya invitationka atariishada, waxaana ogaanaynaa atariishada inay college kusoo laabato intii maalmahan dhan ay ka maqneed. atoorahana waa loo soo sheegay. ugu dambe isagana wuxuu imaanaya koleejka, wuxuuna ku dhahayaa waqti dheer ayay kuu qaadatay, waxaa adig kuu sameeyey inaa ilaawad. iyadana waxay dhahaysaa dharbaaxa ayay u gelinaysaa, waxayna dhahaysaa aad ayay ii xanuunjisay. laakiin atooraha wuxuu bilaabayaa inuu dareemo gocasho iyo waxyaabuhu sameeyey inuu ka xanaaqo. uuna atariishada wuu jeclaa laakiin muusan dareensanayn, laakiinse jecelka ee kusoo kacaya. wuxuuna u imaanaya aabihiis, wuxuuna ka codsanaya inuu soo badbaadiyo jecelkiis oo laga guursan rabo. Rohit baabu wuxuu usoo wadayaa atariishada xaflad ay ku shaacinayaan farantigiliskoodii inay isguursan rabaan, laakiin atooraha lasoo wacay waxaana loo sheegay in atariishada caawa la shaaciyey guurkeeda uuna Rohit shaaciyey. atooraha wuxuu imaanaya meesha, laakiin wuxuu arkaya atariishada oo xoog uu rabo Rohit inuu la ciyaar. kabacdi angalaas ayuu u gelinayaa. atoorahana
wuxuu dhahayaa see ula ciyaari kartaa sunniyaaladeeda, wuxuuna ugu imaanayaa gurigeeda, laakiinse wuxuu ka codsanaya inay cafiso, laakiinse ma ka yeelayso. Laakiin banaanka usoo baxaysa waxay dhahaysaa ordahay ceebeen, ceebtii hore ay ugu filan ee inta ka tag dadkii ku arkayne. barbaryo dheer ka bacdiyeedna way diidaysaa in wuxuuna dhahayaa guursan ninkan waa ku baryaa adoo la guursanaa ma arki kariyeen. Waxay dhahaysaa maya tan way dhacaysaa. gurigii usoo laabanaysa way bilaabaysaa inay uusan maalinka xiga waxaa imaanaya tooraha aabihiis iyo hooyadiis waxayna u sheegayaan inay rabaan gabadha tiriishada inay aroosaan. tiriishada banaanka joogta hooyadeed wayna arkaysa wixii dhacaya. aabbaheedna wuxuu dhahay gabadheeda gurigii loogu talagalay ayaa loo gelinaa. hooyada tiriishadna way ogaanaysa in gabadheeda ay jeceshahay wiilka, laakiinse wixii qaban karta male. laakiin maalinkii arooska waxay maqlayaan in uu shil galay tooraheena salaar shaah. hooyadeedna waxay dhahaysaa gabadheeda jecelkeed dhimanaya ma arki kara ee fasax waana la sii daynaya. tiriishada waxay imaanaysa isbitaalka tooraha ay arkaysaa isagoo sariirta saaran xaaladiisna ay soo roonaanayso. way la hadlaysaa ugu dambeyn tooraha uu soo naaxaya. waxayna dhahayaa waxay family dhan wayna ku heshiinaya inay isguursadaan. waxayna dhahaysaa anta ka kac si aan isku guursano. ugu dambeyn way is aroosayaan finally. Bye bye, subscribe to my YouTube channel.